gudoomiyaha waxaan weydiinayaa gudoomiyuhu wuxuu caan ku yahay mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxa jira idin kale mujaahidiinta waxa kamid ah la raado mujaahid dhagaweyne maalin buu leeyahay maalintii buurto kale aadayshina maalin buu lahaa lixla maalin buu lahaa kaasho maalin buu lahaa cabdiqaadir askar lahaa marka waxaan ku weydiinayaa gudoomiye mujaahidnimada sheegata bal maalintaad ornasa waa maalintaydii oo sida ragga kaaga gaar leh bal noo sheeg gudoomiye adeer maxaa la yidhi meeshii muu joogi jirin miyaa lagu yidhi adeer iskaba daa sheegashada oo taariikhda maalmeedeeda anu maalina melihi taariikhda waxaanu galo ummaddaa sheegi doonta anigu moogi waxaa qabtay weliba isma qabeen oo wax badan qabtayna ragga aad sheegaysa iyo kuwa badan oo kale way iga fiican yihiin waana iga geysanaya markaan eegno golaha hogaamisaana waa ka ugu liita Somaliland wax xeerarka way sameeyaan gooluhu su'aashiina inta ka daba tagaya xeerkii bangiyada kii maal maxay tolayn kala xadeynta ganacsiga intiiba waa idinku qabiyo maadaama caynkaasi tahay ma la oran karaa raad muuqdo oo lagu doorto oo dadka halka fadhiya oo kugu doortaan lagama hayo mid lagu naco mooyaane ma qabo inuu yahay golihii ugu liitay waxaan qabaa intii halkan joogtaa nin waliba nin buu soo doortay 82 waxay metelaan Somaliland siday u dhantahay marka hadday yihiin kuwii ugu liitay Somalilandna way liidataan u saan qabo waayo qof kasta ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdo oo waqtigaa codeeyay wuxuu codeeyay mid ka mid ah 82kaas marka waxay la tahay taasi inay insult tahay oo bulshada oo dhan Somaliland meel ka dhacay ku tahay waxa qabadkoodu uu yari waa la oran karaa hadii la jirto waxaan qabaa in ka badan ku dhow 50 xeer bay ansixiyeen muddadii ay joogeen waxyaabo badan oo ama go'aan loo baahnaa bay soo saareen dhaliil way iska jiri kartaa institution kasta oo ma difaacayo in dhaliil uu leeyahay ama yeelan karo goluhu waqtigii uu joogay City Bank in uu noo sheegay inuu maxay ahaynay uu siiyay lacag ama uu maxay ahaynay doorashadii uu campaign-kii Obama uu lacag ambaahiyay waqtiga muxuu nooga sheegi karaa ama imika muxuu xiriir milay Barack Obama nin odayo oo aniga doonayay iska ka warray inta context ka soo saaray hatta hadalkii oo dhan kuma soo qaadeen ayuu yiri war bal ninkan waalana eega ay yiri Barack Obama lacag si ordo waxaan idin sheegayaa Barack Obama nin la mid ah aniga dadka Somaliland iyagu inay siyaasaan ma aniga Barack Obama jaamacadda 6 sanadood biigu horreeyay ونن يلميدا أو نسكو عيل كسو عبني هرتو وين تاو جاتين الله كرتي هاي براك أوباما يا أو أنا يسين وين دو جاتا ولا بحن كل شيء يا براك أوباما تنين سقو ضل كمريكان كوسو برتي أو كوسو قريبوها أو سيدا كو قلت جامعة هارفارد أنا جو قحوتي أنت تيجي أنا حتى نقول دقيقة أو أنا قلت جامعة marka Barack Obama wuxuu weyn hay nooga dhigina anigu Somaliland baan hay oo u dhashay dalkaygii dalka Somaliland ma ahayn ninkooda hal doorka inay hoos u dhigaan hay dhigina aniga Barack Obama ana idii ah oo ka wanaagsan si fiican la hadla bariya waxa kale idii sheegaya Barack Obama waa qof caadi ah weeyaan waana run aan lacag siin jiray أنا كل شيء يا تاسع العقد مو هيسن لكن تذكي generation يسكي مركو كل أحد عاي يقولون والله وحبك عشان ما $100 $8 $14 هذا أنا بدور بقول يا كنت سين واحد نوشكتي إن أي وضمضة مدحضو مركا أي رادينيان اعترافك ودوين بدن لومرو wadada adiga shakhsiyan ku qorshaysan ee doonaysa inaad u martay اعترافka dalka maxay tahay qodobadaas اعترافka wadooyinkii badnaa la sheegay teebaan Umar Raabay kula tahay aniga igama qasna waxay ila tahay inaynu u marro dadku iyagu intelligence-kooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda ay sugeeyeen ee adduunku iyaga u baahday uu halkooda uga tagay iyaguba 9 bilood bay ku dhasheen inaguna 9 bilood bay ku dhalanay aqoonteedina way leeyihiin wadada ay mareen Singapore iyo Japan inaan marrabaan jecelahay oo maskaxdeena muruqeenu ku tashano inaan meel kale ku wareegin in budget aanu qoondayno budgetka aanu qoondayno
maanta budgetka madaxtooyadu waa 8 milyan oo dollar barigi daahir yaal 3 milyan oo dollar buu budgetka madaxtooyadu kaliya haddaan ka soo jarno ilaa 2 milyan meelaha kalena ilaa 2 milyan ka soo jarno 4 milyan oo dollar oo aqoonsi loogu raadiyo budget sanad walba Somaliland ayaan samayn karaynaa very simple calculation in la sameeyo guddi ictiraaf raadinta oo ku jiraan hal doorka Somaliland dadka maartay Somaliland oo leeyahay wax ka dhilin karaya tusaale ahaan Professor Ahmed Ismail Samatar tusaale ahaan adna aadan Ismail waa dadka guddidaas ka mid noqon karay iyo dadka mushiikhda dadka hal doorka dadka wanaagsan ee daacadda oo Somaliland haddii guddida loo sameeyo oo strategy loo sameeyo strategy-ga wuxuu noqonayaa anagu ictiraafka waxaan ka raadinaynaa African ka raadinaynaa waxaan sameynaynaa 4 ilaa 5 wadan oo Afrika ku yaala ayaan target ka saaraynaa 4-5 wadan ayaan ku qancinaynaa inay marka ugu horeysa iyagu noqdaan qosada arrimaha dibadda runtii dee anagoo mucaaradaba berigii madaxweyne Riyaal laga bilaabo waxaanu ku dhiirigelinaynay in xukuumaddu ay samayso ama xukuumaddan ha noqoto ama tiim madaxweyne daahir ha noqoto in la sameeyo siyaasad arrimo dibadeed oo qaranka kula shaqeeyo oo mucaaradka kula shaqeeyo oo ummadoo dhammi ay qayb ka noqoto taladeeda waxaanu anagu ballan qaadaynaa kulleyba inaynu samayno siyaasad qoran oo aynu ku dhaqanno oo idinku akhriyi kartaan oo comment ka bixin kartaan oo contribution ku dari kartaan oo mucaaradku comment garayn karo oo aynu galdaloolooyinkeeda buuxin karno waxaas leeyahay taasaana lagu hogaamin karaa siyaasaddeena arrimaha dibadda haddaba dhalinyaro badan iyo dad badan oo aan hore ugu jirin siyaasadda ayaa doonaya inay ku soo biiraan waqti xaadirkan adigoo nooga faa'iideynaya khibradaadaas ama cidda doonaysa inay ku soo biirto siyaasadda uga faa'iideynaya khibradaadaas maxaad odhan lahayd eed u soo jeedin lahayd in laydinka barto maxaase aad u soo jeedin lahayd oo odhan lahaydeen ha naga baranina oo ficladaa samaynina laba erin baan kugula talin lahaa haddaad doonayso dantaadu inaad ilaashato ood carruurtaada iyo gurigaaga iyo waalidkaaga iyo shaqadaada iyo naftaadaba aad ka ilaaliso dhibaato badan oo aayar dhib yaraato gurigaaga iska joog haddaad doonayso inaad odagaaga isdishaan ood carruurtaada hareeri weydo ama islaantaada isdishaan haddaad doonayso in nin waliba ku maago oo waxaan ku qabanin kugu idhaahdo haddaad doonayso inuu qof waliba ku idhaahdo tayda yeel ood in badan dhegaysanayso siyaasadda soo gal dhalinyarada waxaan u sheegayaa siyaasadda yaan laydinka dhigin bahal waa libaax ama wax cunaya siyaasaddu sidaa maaha siyaasaddu waa hogaamin waa leadership waa wax wanaagsan wax xun yaan laydinka dhigin ya waa haddaad doonaysaan dalka inaad wax ka qabataan wax fiican aad samaysaan siyaasadda inaad gashaan cidna ha uga aabayeelina yaanay kuwa siyaasiyiinta ee waaweyn oo hore idinku joogay yaanay idinku odhan guryihiinna iska jooga waa been weeye taasi soo gala siyaasadda baan anagu idin leeyahay waa mustaqbalkii ummadda waxaynu u baahan nahay waxyaabaha asaasiga ah ee dhallinyaradu ay tabayso oo ay ka mid tahay shaqo la'aantu iyo mararka qaarkood dee tahriibtuba in la kobciyo sidaan soo sheegay arrimaha dhaqaalaha oo dhallinyarada gacan la siiyo siday self employment u samayn lahaayeen siday hay-adaha dowladda institutionska sida wax soo saarka loo badin lahaa siyaasadda laftiga dhallinyarada waxaanu ka codsan doonaa mustaqbalka inay qayb ka noqdaan siyaasadda qaranka ee dhallinyarada lagu hogaaminayo haddii ilahay ka dhigo wuxuu sheegay maalmaha ka mida uu yidhi culimmada ganacsigii iyo siyaasaddiiba way nagu qabsadeen culimmadu siyaasadda yaanay nagu soo doonan maalintii takaaful la furayay hudheelka Mansoor bay ahayd ereyadii aanu waxay ahayd oon imikadan maqashiin doona haddii aad u baahataan aniga sheekh Xuseen aanu murminba culimooy saddexdii la isku maagi jiray baa faraha la gasheen adkaysta waa marka hore lacagtii baa yeelateen ninka lacagta waa la caayaa waa isma jale waa bakhayl looma hoydo dadka miyuu arkayaa wuu kibray
iska adkaysta idinkaa lacagtii doontee laba siyaasaddii baa gasheen oo waa ku dhex milanteen siyaasaddana waxaabaan odhan jirteen berigii hore waxay isku hayseen ma xalaal baa mise waa xaaraan ta saddexaad taladii xeerarkii ama shira wixii social leadershipkii even tradition qabaa'ilkii ayaa ku milanteen oo sheekh waliba haddaynu runta isu sheegnay imika ilaa masaajidada qoloqolo loo tukiya mudane musharax waxaa tahay aqoon-yahan aqoontaadu weli wax saameyna kuma yeelan siyaasadda dalka marka maxaa ka hor taagan aqoontaadu inay saameyn ku yeelato dalka dawladda taas waa fikradaada adigu taas waa taada adigu waa taada weeyaan aniga oo dalka ku cusub oo 5 sanadood siyaasadda ku jira oo keliya ayaa waxaan noqday musharax madaxweyne ee xisbi qaran ma taasaan adeer saameynahay rag bay ku qaaday 25 sanadood inay musharax noqdaan saddex golo qoran buu waddanku leeyahay waxa uu madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanku waxa weeyaan isku awood waliba ra'iisul baarlamaanka ka awood badan oo xeerkii waddanka dejinaya waxa imika adiga oo ra'iisul baarlamaankii aad qaban weyday goordhow markaad madaxweyne noqoto maxaad qabanaysaa maxay si kala duwan yihiin dastuurku wuxuu tilmaamay inay waaxyahaasi awood siman leeyihiin inkastoo practically marka la eego aanay awood siman lahayn dastuuriyana way leeyihiin marar badan baa maqasheen baarlamaankii waa la qabsaday soo maaha oo cid baa qabsatay fulintii baa qabsatay waaxda garsoorka in badan baa la yidhaahdaa xukuumaddu farafaraynta kama dayso marka la eego dastuurka dee waxyu waa siman yihiin waxyaabahaanu kaloo aanu ballan qaadi doonno waxaa ka mid ah in madax bannaanida waxyaha qaranka la soo celiyo haddii ilaahay ka dhigo